meeshaan lama ogola. intaas kuma joojin wuxuu sameeyay alaabtiisii isaga inuu soo jiiday foorno ku hortaalay masaajidka hortiisa meeshuu ku tuuray. nina fiirinayay marka, nina isha wuxuu ku hayay markuu albaabka ka soo baxay, markuu sheekh meesha xarxaaranayay wuxuu fiirinayay ninkaas wuxuu rabay albaabka foornada inuu xiro. salaad cishaa kadib uu foornada xiri jiray. foorno iyo dukaan waa isku dhex yaalo, ana foornooyinkii hore oo markaasi عيشك يروتي سمين جري. على كل حال وقدام بنتي ننكي مركو أركس ماشي إنه وصل طوري أيا وحجري وحدو أكتغف مسافر مكشري حا مركز وحجري وحدو أكتغف عن هيسن مال وصاحبه هؤلاء مالا هيست مالهن وانصاحبه وحجري كاري سوقل فورنا ديدا جودها وسوقل أما الدكان كيجا مركز سوقل شو وحن كنت سندونا مال جوني أو مناسب أو أتصيحن كرتو وايهو ده وسوق جري فورنادي meel geesa oo nidaamsan boorsooyinkii wixii soo u dhigay wuxuu waxaan ka codsanayaa meeshan wax yar inay igu sugto howl cajiini waxaasan dhameynaya markaan dhameeyo waxaan markaas meesha dhan aan kaaga tagayaa intaas ka seexanaysa markaas kadib waqtigii munaasabka ku ah ayaad bixi kartaa ama salaada fajrka masaajidka aadi kartaa. waayuu dhahay sheekhi markuu isku sugo meeshuu fariistay marka wuxuu arkay ninkii cajiinka sameeyay oo ku celcelinayo استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله إله إيدم بداف marka uu wada marka hawshiisa xaq u aada waxba soo qaadanaya waxba isku toosinaya wuxuu dhameystiraya ma bahadlay astaghfirullah 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 ninka marka sheekhi waa soo istaagay oo yimid wuxuu dhahay kelmadan aqal celinay sida uu soo duuduulaysa astaghfirullah ma leedahay wuxuu yiraahdaa astaghfirullah wuxuu leeyahay sidaan ila goorma sameeynaysa ninkan waa caalim uu ogaa waxa uu ku hadlayo uu dhahay wax weyn way markaas wuxuu yiri noloshooda dhan sameeyaa uu dhahay markaan shaqeynayo markaan wax gadaayo kaliya maahane marka wuxuu dhahay intee jeer dhahda astaghfirullah maalintii nabiguna oo ogtiin wuxuu dhahay inni la astaghfiru 100 marra rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo 70 toddobaatan jeer ama 100 jeer isagoo dambigiisa loo dhaafay ayaa wuxuu yiri intaasoo 100 jeer maalintii ama 70 jeer ayaan ilaahay dambi dhaaf weydiistaa dambina ma lahayn. waxay ku tusinaysaa intaasoo jeer marka la dhahayo in la badiyo. marka wuxuu yiri 100 ma akhrisaa ma hi 100 waa ka badan tahay oo dhahay kun waa ka badan tahay. markaas kadib wuxuu weydiiyay su'aal ah markaad akhristo astaghfirullah ilaahay wax ma weydiisataa markaas yiri waxaan rabaa weydiistaa wuxuu yiri ilaahay ma ku jawaabaa markaas yiri ma bajirabo wax aan weydiistay maalintaasi oo ilaahay uusan isiinin hal shay oo ilaahay iga soo daahiyo oo wali aan sugayo markaas yiri ma waxaad leedahay waxa ilaahay weydiisato ku siiyaa maya ilaahay maalintii uu siiyaa ku dhahay waxaan weydiistay ilaahay maalintii wax iga maqan malaha nolosha ugu fiicnaan ku jira laakiin hal wax aan jeclahay aan ilaahay weydiistay maadaama wax walba ilaahay uu isiiyay oo aan ku qanacsanahay waxaan aaminsanahay tanna ilaahay inuu isiin doono maxaa waay u dhahay wuxuu dhahay cid inaan u sheega maraba aniga ilaahay waay markaan weydiistay ilaahay watan aniga adiga waay waxaan rabaa waxaas inaan helaan dhaha may waa ku balan qaadayaa in magacaaga aan sheegi doonin laakiin waxa qabanayso khayrka aan sheegi doono say dadku ugu faa'iideystaan marka ma ii sheegi kartaa waxa ka maqan oo ilaahay wali uusan ku siin waxa iga maqan uu dhahay ilaaha waxaan weydiistay waxaan dhahay ilaahow dambi dhaaf aan ku weydiistaa tiro ma tiriyo intaasoo kun adiga dartaada ayaan waxaan rabaa ilaahay dartiisa awoodaada oo aad leedahay oo wax walba aad ku samayso ma safri karo laakiin sheekh aan jeclahay jiro imaam aimada kamid ah oo kutubtiisana aan akhristo ilaahu indhahayga iigu qabooji inaan arko isagoo nool sheekhaas ah imaam Ahmed ibn Hanbal markuu dhahay imaam Ahmed ibn Hanbal uu ku soo booday sheekhi dhudhun ka soo bilaabay inuu dhudhunkado ninkii markaas uu yaabay marka maxaa dhacay uu dhudhunkanaya marka wuxuu dhahay maxaa dhacay markaas wuxuu yiri wallahi ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu igu soo leexiyay yiri ducadaadii awoodeedii wuxuu igu soo leexiyay xaafadii ama magaaladii ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu igu soo leexiyay masaajidka hortaada
ku yaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iga soo saaray masaajidkii oo hortiisii inaan seexdo waa layga soo deediyey masaajid hortiisa in layga soo qaada gurigaaga foornadaada hortiisa laygu soo tuuray wuxuu yidhi waa awoodda ducadaada ilzam macnaa wad daa'im ha kala joojin marka waxaan idin xusuusinayaan kusoo gabagabeynayaa nebiga wuxuu yidhi xadiis oo la yidhaahdo waa daciif xadiiska laakiin macnaahu saxiix macnaha xadiiska waa saxiix man lazima alistighfaar qofkii joogtay istikfaarka jacala allahu lahu min kulli hammin faraja ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب حديث كسحولة قفكي جوكتي استغفر الله إلهي سبحانه وتعالى وحول بأ كربه هيسته إلهي وكقابه إليني كست وكجر إلهي وكساره وحسن فيلين وربنا إلهي وصيه صدح درس أواوين استغفارta akhri maalin kasto darsiga labaad boqolaal intaad gaarsiin kasta gaarsii hadalka bini aadamka aad ku celcelin lahayd iyo waxyaalaha kale aad dhihi lahayd booskiisa waxaad ku bedeshaa istikfaarta saddex adigoo waxaad rabto qorshaystay ilaahay inaad weydiisato ilaahay weydiiso waxay doonta ahaato waad heli wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu